labada dal ee Japan iyo Qatar ayaa kama dambaysta finalka soo gaaray tartanka Asian Cup-ka ee ka soconaya wadankaasi Imaaraadka. Labadani dal ayaa marxalado kala duwan ka soo maray inta uu soconayo tartankani Asian Cup-ka oo sanadkan lagu martigeliyay dalka Imaaraadka. waxaana dalalka Japan iyo Qatar ay soo reebeen Iran iyo sidoo kale xulka martigeliyaasha ee Imaaraadka. kulan ciyaareedka xiisaha badnaa ee dalalka Qatar iyo Imaaraadka oo martigeliyaasha ayaa wuxuu ku soo dhamaaday afar waxba ay guul weyn ay ka gaartay xulka qaranka wadankaasi Qatar oo taariikhda markii ugu horeysay soo gaartay kama dambaysta finalka tartanka. waxaana finalka tartanka ay wajihi doonaan xulka qaranka wadanka Japan oo ah xulka ugu badan hanashada koobka Asian Cup-ka ee 1 February lagu soo gabagabeyn doona wadankaasi Imaaraadka. xulka qaranka wadanka Japan oo dhinaca semifinalka ka soo adkaaday xulka wadankaasi Iran oo 3 waxba uu kaga soo adkaaday ayaana markaa rajeynaya in markiisii shanaad uu ku guuleysto tartanka Asian Cup-ka iyadoo Qatar ay si weyn kaga dhex muuqdeen ciyaartooy da'yar oo u muuqda kuwa awoodooda ku soo bandhigi doona finalka tartanka Asian Cup-ka oo Japan ay kaga hortagi doonaan maadaama Qatar taariikhda ay soo istaagtay markii ugu horeysay finalka koobka qaramada Asian Cup-ka waana mid kaliya ay rajeynayaan inay ka guuleystaan xulka ugu hanashada badan tartankani ee xulka Japan. mid ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Japan ayaa si gaar ah u xiiseynaysa xidiga Arjen Robben ee ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. waxaana kooxdani lagu magacaabo FC Tokyo ayaa xiiseynaysa in ciyaaryahankaasi Arjen Robben ay ka soo ambabixiyaan horyaalka Bundesliga wadankaasi Germany maadaama bishii aynu ka soo gudubnay لاعبكان oo dhashay wadankaasi Holland Arjen Robben oo sheegay in gabi ahaanba uu isaga dhaqaaqi doono xil ciyaareedkan wixii ka dambeeyay kooxda kubadda cagta Bayern Munich. xidigan oo da'diisu ay tahay 35 jir Arjen Robben ayaa kalsooni weyn ku qaba in xifradiisa kubadda cagta uu ku sii jiri doono tan iyo inta da'diisu ay ka gaarayso muddada 40 sano. laakiin kooxdan ka dhisan horyaalka wadankaasi Japan ee Tokyo ayaana markaa si gaar ah u shaacisay inay xiiseynayso ciiraankani. Arjen Robben waxa uu leeyahay haddii dalab rasmi aan heli waayo xil ciyaareedkani inta ka harsan waxaan gabi ahaanba go'aansan doonaa inaan isaga fadhiisto xifradda kubadda cagta ayaa laga soo xigtay laacibkani. Arjen Robben ayaa sidoo kale waxa loo gacnaatinayay horyaalka wadankaasi Mareykanka laakiin ilaa iyo hadda muusan xusan ciidaanka barta uu doonayo inuu u dhaqaaqo markuu dhamaado xil ciyaareedkani. maamulka kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa kaga mahadcelinaya xidiga Christopher Piatek guushii weyneed oo Milan uu gaarsiiyay kulankii ay ka adkaadeen kooxda kubadda cagta ee Napoli. wacdaro xooggan ayuu muujiyay waryaankan cusub ee kooxda kubadda cagta AC Milan Christopher Piatek waana laacib si weyn ugu soo ifbaxay kana farxiyay taageerayaasha faraha badan ee kooxda kubadda cagta Milano oo muddo aad u fara badan ku jiray hurdo. laakiin waxa la xusay in maamulka kooxda kubadda cagta AC Milan ay aad kaga qanceen kartidii uu muujiyay xidigaasi Christopher Piatek. laakiin waxa la xusay in tababaraha kooxda kubadda cagta AC Milan uu aad ugu dabaaldegay labadii gool oo ciyaaryahankaasi uu ku xasuuqay kooxda kubadda cagta Napoli. waxaana warbaahinada qaarkood ay leeyihiin ciyaaryahankani haddii sidaani uu ku sii socdo waxa uu noqon doonaa waryaanka ugu hadalhaynta badan ee taariikhda. waxaana loo xiganayaa in ciyaaryahankan uu yahay xidig isku xire aad u wanaagsan kubadahana ka soo raasada qaybta qadka dhexe si markaa ciyaaryahankaas u noqdo laacib awoodiisa ku soo muujin kara horyaalka wadankaasi Talyaaniga. maamulka kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa weli waxay ku rajoogaa qaabkii uu la soo wareegi lahaayeen ciyaaryahanka ka tirsan Real Madrid Isco. لاعبكان u dhashay wadankaasi Isbaanishka ayaana markaa dhawaan la sheegay inuu qorsheynayo ka dhaqaaqista garoonka Santiago Bernabeu maadaama madaxda kooxda kubadda cagta Real Madrid ay xusayaan inaysan si fudud noqon karin in Isco uu kaga dhaqaaqo garoonka Santiago Bernabeu. warar hoosaad ayaa la soo shaaciyay oo City ku aadan waxaana City ay sheegtay in ciyaaryahankaasi ay ku doonaysay adduun dhan 50 milyan oo lacagta Euro-ga balse Real Madrid qiimahaasi waa ay diiday waxaana ay ka wareeshay in arintan ay tahay mid laga afduuban karo ciyaaryahankaasi u dhashay wadankaasi Isbaanishka Isco. wararka qaarkood ayaa xusaya in macallin ku-xigeenka kooxda kubadda cagta Manchester City Mikel Arteta uu leeyahay City wali waxay xoojinaysaa dalabkaasi Isco maxaa yeelay wali waxaan rajo weyn aan ka leedahay in Isco aan keeno garoonka Etihad Stadium ayaa laga soo xigtay macallin ku-xigeenka kooxda kubadda cagta Manchester City balse tababare Pep Guardiola ayaa markaa xusaya in wali suuqa Isco Manchester City aysan ka bixin. kooxda kubadda cagta Real Madrid ee ka dhisan horyaalka Spain ayaa wali waxay xoojinaysaa dalabkeeda ku aadanaa xidiga reer Belgium ee Eden Hazard. arintan ay waxay ku soo beegmaysaa kadib markii madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez uu xusay in ciyaaryahankaasi Hazard ay qorsheynayaan in ay xoojiyaan dalabkiisa maadaama maamulka sare kooxda kubadda cagta Chelsea aysan ogoleen in Hazard ay ka ambabixiyaan gigida Stamford Bridge. wararka qaar ayaa la xusayaa in Chelsea ay u baahan tahay oo kaliya inay hesho in ka badan 100 bilyan balse kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa doonaysa heshiiska wiilka reer Belgium Eden Hazard inay qayb markaa kaga dhigto xidiga Mateo Kovacic oo si amaha
xil ciyaareedkan kula joogo kooxda kubadda cagta Chelsea waxaana la sheegay haddii Chelsea ay u baahan tahay gabi ahaanba inay la wareegto xidiga Kovacic in lagu qiimeyn karo adduun dhan 30 milyan waxaana uu qayb ka noqon karaa heshiiska Real Madrid damac kaga jira ee Eden Hazard ciyaaraankan ayaa waxa la aaminsan yahay in si qaas ah uu u danaynayo inuu u degdego ku biirista garoonka Santiago Bernabeu ee kooxda kubadda cagta Real Madrid waana mid la leeyahay sawaha uu Hazard uu saxiix la yahay heshiis kordhinta kooxda kubadda cagta Chelsea waa jacayl uu qabo ku biirista kooxda kubadda cagta Real Madrid kooxda ka dhisan horyaalka wadankaasi Shiinaha ee Yifan ayaana markaa doonaysa inay gacanta ku soo dhigaan xidiga Andre Belotti kooxdani kamid ah kooxaha sida weyn kaga dhex muuqanaya horyaalka wadankaasi Shiinaha ee Dalian Yifan ayaana markaa doonaysa inta u dhaxaysa 50 milyan ilaa 60 milyan inay markaa kula soo wareegi doonaan xidiga Andre Belotti balse kooxda kubadda cagta Turin ay ka dhisan horyaalka wadankaasi Talyaaniga waa ay diiday dalabyada ka soo gaaraya horyaalka wadankaasi Shiinaha jarada Sky Italian ayaana markaa saacinaysa in qaar kamid ah kooxaha ka dhisan horyaalka Shiinaha ay yihiin kuwa ugu hadalhaynta badan toddobaadkii ugu dambeeyay maadaama kooxda kubadda cagta ee Yifan ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Shiinaha ay doonayso in ciyaaraankaasi ee Andre Belotti uu buuxiyo booska Carrasco waxaana ay sheegeen in laacibkaasi uu noqon doono mid ka si fudud u imaan doono horyaalka wadankaasi Shiinaha xitaa balanqaadyo kale ayaana markaa ay u sameynayaan xidigani Andre Belotti kooxda Lyon ee ka dhisan horyaalka liiganka wadankaasi Faransiiska ayaa dhinaca kale diyaar u ah in Olivier Giroud ay dib ugu celiso liiganka wadankaasi Faransa maadaama laacibkani la sheegay in gabi ahaanba uu isaga dhaqaaqi doono xil ciyaareedkan Gigida Stamford Bridge xilli ay kooxda kubadda cagta Chelsea ay si amaah kula soo wareegtay Gonzalo Higuain balse madaxweynaha kooxda kubadda cagta Lyon Jean Michel ayaa aaminsan in ciyaaraankaasi Olivier Giroud ay keeni doonaan horyaalka wadankaasi Faransiiska maadaama ay u arkaan inuu yahay xidiga ku wanaagsan in dib loogu soo celiyo horyaalka wadankaasi Faransa ugu dambeyntiina ciyaaraanka ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Manchester United Anthony Martial ayaa xilligan u muuqanaysa fursad uu kula sii joogi karo sanadaha soo socdo kooxda kubadda cagta ee Manchester United hadalhaynta ugu weyn waxa ay tahay waxa dhawaan la filayaa in kooxda kubadda cagta Manchester United heshiis 5 sano ay afka u gelin doonto ciyaaraankan u dhashay wadanka Faransiiska Anthony Martial toddobaadkan ayaana markaa arintaasi lagu dhawaaqi doona sida warbaahinada qaarba ay xusayaan Anthony Martial ayaa ah dhaqaaqaha ugu wanaagsan tan iyo xilligu ka tirsanaa kooxda kubadda cagta Monaco wuxuu kooxdaasi u suurtageliyay 46 gool 161 kulan oo u saftay kooxda kubadda cagta ee Monaco Anthony Martial ayaa wuxuu kamid yahay ciyaartooyda ugu firfircoon ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United balse waxay muuqanaysaa in ciyaaraankaasi uu noqon doono mid heshiiska la gaarsiin doono tan iyo sanadka 2024 balse waxaa la xusay in maamulka kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay daneynayaan in arintaasiba ay soo gabagabeeyaan toddobaadkani tababaraha kumeel gaarka kooxda kubadda cagta Manchester United Solskjaer ayaana markaa ka dhaadhiciyay maamulka kooxda kubadda cagta Manchester United in gacantooda uusan ka bixin Anthony Martial maxaa yeelay waa laacib si weyn kaga dhex muuqda markii lagu soo bilaabo kooxda waana ciyaaryahan ay si weyn u jeclayeen qaar kamid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United shakhsiyan aniguba aad ayuu ii qanciyay ayaa laga soo xigtay tababaraha kumeel gaarka kooxda kubadda cagta Manchester United ee Master Solskjaer ciiraankani ayaana markaa la aaminsan yahay in toddobaadkan gudihiisa ay noqon doonto mid ay ugu dambeyntii u heli doono sanadaha ama heshiis kordhinta uu ka doonaya xidigaasi Anthony Martial kooxdiisa Manchester United ciiraankan Anthony Martial ayaa Manchester United wuxuu ugu fadhiyaa qiimo gaaraya 36 milyan oo lacagta banka oo ay sanadkii 2015 ay kala soo wareegeen kooxda kubadda cagta Monaco ee ka dhisan horyaalka liiganka wadankaasi Faransiiska